qof adiga ku jecel kaana qarsada jacaylkiisa barkow wuu ku soo eegaa markaad soo eegtina wuu kaa jeedsadaa marka ugu horeysa uu qofka helo wuxuu in badan iska jecel yahay inuu indhaha kugu hayo mar walba oo uu ku arko adiga waxa arkaysaa mar walba qofkaas oo ku soo eegaya ishana kugu xadahaya adigoo uu iska dhigayo inuu san adiga waxdana ka lahayn taasina waa calaamad ku tusinaysa inuu qofkaas ku danaynayo lambar 2 wada sheekaysigiisa xiiso gooni ayuu leeyahay iyo hor u socod marka uu qofku ku jecel yahay wuxuu sameeyaa wada sheekaysi dheeriya iyo dadaal aad u fara badan sidoo ku hanto adiga haato fariin qoraal ama wada hadal ama wicitaan tay rabtaa waxaad arki doontaa qofku inuu xiiseynayo inuu mar walba adiga kuu soo diro message ka turjumaya isaga jacaylkiisa iyo dareenkiisa balse haddaad aragto qofku inuu ku yiraahdo waqti kuma hayo hadaladana ku soo koobayo taas waa mid aan laga danka lahayn basadde kaftankaaga uu ku qoslaa xitaa haddii aad sheegto waxyaabo aan fani ahayn qofkaasi kuma xiiseeyo oo kaliya balse aad ayuu kuu daneeyaa wuxuu bas ka jecel yahay maqalka hadalkaaga iyo kaftankaaga inuu mar walba maqlo lambar 4 wado uu kugula hadlo ayuu mar walba raadiyaa markii aan qof ka helno waxaan jecelnahay inaan qofkaas la hadalno waqtiga badankiisa kana warqabno badqabka caafimaadkiisa mararka qaarna maba haysano wadaan qofkaas kula hadalno soo waxaan saga dirnaa muuqaal fani ah si uu qofkaasi noola hadlo ama waxaan raadinaa cudurdaar aan kula hadalno qofkaas soo hadda aragto qof sidaas sameynaya kaasi waa qof adiga ku xiisanaya oo aad ugu weyntahay naftiisa lambar 5 wuu ku qiimeeyaa qofka ku siiya ama ku yeela qiimaha aad istaashid kaasi waa qofku jecel adiga qiimaha lagu sheegayana kaliya ma ahan in lagu soo hadlo lagu soo xiriiriyo adiga balse waa in lagu ixtiraamo lagu daneeyo waqti wanaagsan lagu siiyo si fiican lagula dhaqmo lambar 6 waqti ayuu ku helaa qofkan xitaa haddii uu mashquul yahay waqti ayuu ku raadiyaa ama wuxuu ku sheegaa inuu mashquul yahay markii uu ka soo baxo mashquulkaasna si degdeg ah ayuu kugu yimaadaa taasi waa calaamad aad u weyn oo ku tusinaysa qofkaas inuu aad ku jecel yahay lambar 7 wuu xasuustaa waxyaabihii aad u sheegtay kaba soo qaad waqtiga aad isbaranayseen qisa ayaad uga sheekaysay adiga kugu saabsan dan waqti dheer kadib haddii aad sheekadii mar labaad uga sheekayso uuna ku dhaho sheekadan hore ayaad iga sheekaysay taas waxaa la dhihi karaa qofkaasi waa qof ku dhagaysta hadalladaadana aad u xiiseeya marba hadduu xasuusto hadalladaada inta ugu muhiimsan kaasi waa qof adiga aad ku jecel lambar 8 wuxuu diyaar u yahay inuu ku caawiyo adiga haddii ay wax kugu dhacaan ama ma u baahato qof aad u sheegato dhibtaada ku diyaar qofkan wuxuuna diyaar u yahay inuu ku caawiyo inta uu awoodo lambar 9 wuxuu jecel yahay inuu waqti kula qaato rajadiisa ugu weyna waxay tahay inuu adiga garabkaaga ka muuqdo mar walba uu oraahdaada maqlana waxaad wanaajinaysaa maalintiisa lambar 10 wuu ku amaanaa qofkan mar walba qof jecel yahay wuu amaanaa wuxuuna dadka kale uga sheekeeyaa wanaagaaga iyo dabeecadaada iyo quruxdaada xitaa haddii aad foolxun tahay asaga waxaad la tahay bil soo baxayso oo kale taasina waa astaanta ugu weyn laguna ogaan kara qofku inuu ku jecel yahay haddii aad ku aragto 10kan calaamadood 5 ka mid ah qof taasi waxay ku cadaynaysaa inuu qofkaasi si aad ku jecel yahay way jiraan fariimo intaan ka tira badan laakiin aniga intaan ayaan soo qaatay saaxiibayaal muuqaalkiisa xiga intii aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo